السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد سلام دقيا. Did I say دقيارته؟ دقيارته شرط الله. زيتين في عندي النطقتين إقرأ لهذا يا رونتاي بدو ريكوردي كادو هذا الكي قصقي عيوقاتا سيليا من في عيا وحد اللي ذا سودينا وش عن صوته سودو هذا ويلكم سؤال بدنا سؤالوا يا روانا كجواب انت جوجنا ورتو ضبيبي دالا جوجنا سودو هذا ويلكم إقرأ لهذا يا الصومالي هو وحب ساكي دحيا عجر هادو إيفي عيها الحمد لله waxbaa igu furmay hoosh way badan tahay soo dhawaada khayr iyo farxad la soo dhawaada welcome meel wax ka dhageysanaya igu furmaya wax kale maaha welcome salaan sare reer dabiib reer dadaal sir haweenaa fadhinaa insha allah khayr welcome maa idin leeyahay hadalkayga degdeg haddaa ka darantaan su-aalo badan aan soo ururiyo jawaabtoodii waaye kasii faa'iidaysta amuurta khayr allah ka dhiga allah nooga dhiga dhammaan طبيبي دلالة فدنايا ما جوجنا أصحاب قاليا سو إلى قرطة سو دواذا هاي السؤال هو بديهن أتكيسي لو باهيهن دعد بديد يا أتكيسي أنا مركا إذا ده أتكيسي لو باهيهن وحلقة يابا قاركين نادهن أو يا مركز هذا الليلة وضع هذا الآن لو دذالين لايك مهرقل أيمانو wax kasta haddaan howsheeda loo kicin waxaa sugtaa waa ku sugaan soo dadkay u hagaagtay aan rabay inaan kasoo hadlo waqtiyaa loo waayey iyo dadkay weli ku adagtahay soo intaa ku bilaabeynaa dabiibi dadaalaan lasoo galna insha allah arrimahaas okay walaashaan waxay tiri maamuwaan ugu salaamaa salaanka bacdi muddo dheeraan dabiibka daba socday 3 sano waxay iiga dhuntay ganuunac dabeecad xumo maanta biri wahsi xanaaq finally 3 sano ka bacdi maalmaha ka mid ayaan nabar xanuun dareemay xagga caloosha qaybta hoose ee systemka ku aadan balana nafteeda u qaada nabarkaas haduu ilaahay iga fujiyo inaan nafteeda u kaco so maalmo ka bacdi markuu nabarka iga fuqay jiima iska soo qoray ama rugta jimicsiga qof walba wuxuu yaqaano gadaal ma fiirinin aad waxa igu adkaatay sonkorta inaan joojiyo laakiin kama dambeyn waa ku guuleystay dadaal dulqaad finally fareygo israaceen alxamdulillah gabar walbana waa la jeclaa lahaa there you go saasaa la rabaa laakiin sometimes waxaa dhacdo mararka qaarkooda ka wadaa in dan adduunyo ay ka habsaamiso dantaada because haddaanan qofna ku xasuusinayn haddaan cidna ku dhiirigelinayn haddaadan adigana is ogaanin waqtigii waayaha istaba maraan soo gabadhaas exactly arrinkeeda kumanaan ay ku dhacday waa aragnay ama waaba tabanaba qaarkeen inaan maanta biri amaahano good luck maasha allah tabaarakallah soo dhawaada dhammaantiin okay gabadhan kale waa reer dabiibiyadana waxay tiri maamoonooy waa ku salaamay salaanka bacdi anigu halka ila martay ilaa ay haddana iga tahay waa dabiibka ku orod haddana ka orod dabiibka ku orod maxaad igula tali lahayd arrinkaas waa jiraa haddaan runta isku sheegno dad badanoo waxaa jira kumanaana ee jecel allah la garab gala inay isla tacaalaan haddana culaysyaa jiro taas waa idiin dhahaa mar walba ilaahay barya dabiibkana iswaraysa marka hore markay kuu soo baxda dantaada say muhiim kuugu tahay ama waa ku dhaqaaq sidaan channelka kale ka sheegaynay ama ku dhaqaaq laakiin go-aanka adaa iskale okay talawaatii ilaahay ka sako inaad tashato waayo haddaa da-daada fiirido waqti haddaa lulumi karto oo dhowr iyo 20 sano aad tahay ama markaan 20kii leeba hadda aa madaxa gelisay is fine because gabar yaraa tahay waa awoodaa time inuu kaa lumo laakiin gabar roon haddaa tahay no soo tasho ducada badeed tasho adile noo kasi kara maahno sidii arrinkaaga muhiim kuugu yahay okay insha allah khayr habar yar gabadhan kale waxay tiri aniga waxaan ku dhibanahay cayil qaas ahaan iga galay caloosha iyo sinaha howlo badan oo ii yaalayna
cayilkaas daraadiis ayaan u habsaamiyay. maxay igula tali lahayd? Ubixii la waraabiyo waa nuuraa. haddaad isku soo kordhiso socod, simple socod, maalin walba aad socoto, haddaad doonto xataa waxaa doonto cun, kugulama taliyeen bariis iyo baasta, laakiin qudaaraha badso, salarada, socodna badi, weydka waa dhacaa. tartiib tartiib wax fiican u raadsa insha allah. kabacdi markuu jirka kuu kala baxbaxo, dhiigga jirka kuu wareego, cunto fiican iyo qudaarana aa qaadato, jimicsi badanaa gurigaada ku sameyn kartaa. weydkan asaa iska dhacay, laakiin ku bilow duca dabadeed socod insha allahu khayr. good luck. haye gabadhan kale waxay tiri maamo og salaamaa 3 cilada ay haysato. 3daas cilad waxay kala yihiin macaan, waa kii labaad type 2 diabetic aan ahay. tayda labaad borderline-ka waxaa u taaganaa ama qadka waxaan u taaganaa dhiikar. tan kale waa lafa xanuun, caajiskii adduunkan dareema, isla tacaalka waa igu adagyahay. maxaa igula tali lahayd? okay, horta dhiirigelinaa loo baahan yahay, inaad naftaada dhiirigelido aa loo baahan yahay. haddaad adiga fikirto waxa aa u baahan tahayna muxubadeeda aa iska dhaadhiciso, ilaahay idankiisa cuduradaas waa laga soo kaban karaa. waayo macaanka xataa dadka wuu ka baxaa. oo aragteen kumanka xataa gabdho soo galaa dhahayo macaanka ilaahay jirkeyga ka saaray. waxyaabahan kaloon dareemaynana dhiirigelinay rabtaa, duca dabadeed dhiirigelinay rabtaa. marka dhiirigelintu aaday muhiim u tahay, waana free, just iskugu deeqle, ha iska baqiilin. insha allahu khayr maama. dadaal, nafaqo, wixii aa heli karta cun, niyadana dhiso. wax kasta waxaa la qaban karaa ilaahay ka sako, niyadu markay kuu dhisantay aad ay muhiim u tahay. good luck kabri macaan, daba soco danahaaga. okay, gabadhan kale waxay tiri maama og salaamaa. salaanka bacdi waxaa i daba dhigtay dilan muddo dheer igu soo noqday, ciyaal badanaa iga soo noqday, hadda maskixiyan waaba daalaybo. labadii ciyaale u dambeysay ee iga soo noqday waa ka naxay uurkoodii. maxay igula tali lahayd? okay, haddaan runta idiin sheego, maadaama dad badan kala soo shaqeeya cilada dilanka soo noqnoqoto, adinkana aa ogaan kartiin ama aa fahmi kartiin, ama qaarkiinba idinku dhacday, ilaahay naguma keenay, waxaa dhacdo dilan intuu dhacdhaco dabadeed ilmo caafimaad qaba waa la dhalaa. amarka ilaahay, allaha sii qof walbo ilmaha kasoo noqdo, allahana idiin adkee ilmihii calool galo. marka say wax u dhacaan lama yaqaano. haddaad duceysatid adiga iyo soojkaagana ilaahay idankiisa ilaahay wada baridaan, nafaqo fiican raadsataan, because haddii xataa specialist lagu diro ma fahmi karaan waxa kaa qaldan. okay, haddaad dheef u baahan tahay ma fahmi karaan, mana ku biilayaan. adaa lagaa rabaa inaad wax isku ogolaato. farxadda, nasashada, ducada, nafaqada, jimicsiga, labadiinaba nadiifinta oogada, dantiina inaa orodaan adinkaani laga rabaa, ilaahayna aa baridaan. laakiin haddii reerku waxba iska bedelin, wax dhuudhuujina la sameynin, la shaqo tago lasoo noqdo, la shaqo tago lasoo noqdo, ilmo laysku diyaariyo, ilmihii soo noqdaan, haddana uur la qaado, haddana ilmihii ay dilmaan, you going round and round, waa warwareegay leh. okay, so saas ma fiicno. so ducada iyo daryeelka iyo adinka oo wax isku ogol. waayo haddaan hadda dil dhaho wixii kaa dhimanaa lagu siinaa, maxaa kaa dhiman? labada qofooda beebiga isku diyaarinayso ilaahay baa bixiye, horta inay iswaraabiyaan. okay, nafaqo ayo nooc oo nafaqa inay qaataan, iyo inay ogyihiin qaybaha ka dhiman. hadduu hormoonka wax ka qaldan yihiinna ogtihiin, ilaahay baa wax oge. hadday nafaqada jirka ku jirto ay wax ka dhiman yihiin oo more nourishment aa u baahan tihiin, nasasho haddii loo baahan yahay, farxad haddii loo baahan yahay, quraan saar, dhiirigelin, iyo labada qofood inay relax wada noqoto, laga isku duceeyaan, tartiibtooda inay noqdaan. ilma hadday calool u galaan reerkane, gabadha horta definitely inayna shaqaynin, ee samaysa waxa loo yaqaana bed rest, ay nasato, sariirta ku nasato, howlaha culculus oo dhan laga xigsado, niyadda loo dhiso, cuntooyinka damqa laga daayo. like urqaadista 7kan waa sensitive. waxaa la dhahaa urqaadistii bari hore gabdhaha gurigay rari jireen ay furi jireen, ilmo culus ay xambaari jireen, badar ay xanshirin jireen, like mooyaha ku xanshirin jireen. like lifekii hore gabadha
iyadoo mataana sidee badar xanshirin jirtay. I mean like lifekaas was so tough. laakiin hadda waa sensitive. dadka qaar kelmad yar haddaa ku tiraa meelaa go-eyso qacaa ka yariso. marka moralkii baa maskiina, nafaqadii baa iska maskiina, ugxaantiyaa daciifa, jirka dhanaa bilaa nafaqa ah. dadka dhan physically and mentally waxaa u maleysaa inay ka level hooseeyaan dadkii beri. marka haddeerna he lagama maarmo sabankan in ilmo la qaadee intii raadinaysa allah siiye. maxaa tale waa tii ilaahay. waxaa samaysaan insha allah baldanihiina hoos u fiiriya ilaahay idankiisa. marka hadday ugxaanta daciiftoo kale soo kobciya, cararayaashu hadday daciif yihiin soo kobciya. waxyaabaha marka riximka gudihiisa xataa laguma sheego, like brooyin hadday jiraan, endometriosis hadduu jiro, infection hadduu jiro, riximka hadduu fluid leeyahay, xataa haddii aa weak tahay, like lasii soomaalidoo kale jimicsi ma sameyno, okay, abdominal exercise ma sameyno, jimicsiga caloosha ma sameyno, caloosha ma bixino, nafaqooyinka jirka u fiican oo maasha allah ah ma raadino. I mean bariisi baasta sabaayad wax lamid, and that's not nafaqo. so dilankana wuu soo noqnoqonaa. I mean jirkaa daciifa ilaahay baa keeno, laakiin dadaalkuna ma reebano. okay, so good luck mama. howlaha hoosa loo fiiriyo insha allah. soo dhawaada, welcome. gabadhaan kale waxay tiri maama waa ku salaamaa. intii aan ka gaaran horta soo dayn doonaa siidaa su-aalaha insha allah channelkan oo channelkeena kale. so yeah, gudahaan haddaa ka dhageysanaysaan dheefta idin soo raacina iyo dhiirigelinta insha allah. soo dhawaada, welcome. waxay tiri maama waa ku salaamaa. muddo dheeraan ku aqaanaa, last 7 to 8 years waa kula socday. maama macaaney da-diya hadda i hayso, waxaan dhiirigelin dhegeysa meele iga marta ma aqaano. 2023 which is just now around the corner, aakhirkiisii bilihii u dambeeyey ayaan fahmay inay da-dayda horay u socotay. awal waxaan isla celcelinaa caadada ay saxsaneed 4 bilood, hadda caado ma hayo. haddaan isbaaray waa lay deyriyey. anoo taagan ayuu waqtigii igu hor socday. maxaa igula tali lahayd? okay, markaa dhahdiin da-deydu way socotay, da-daada intay joogtaa? because ani waxaan arkay dad 30 sano ah oo da-deydu waa socotay dhahaayo. inkastoo hadda 20 jir iyo 30 jir isku mid ma aha, 10 sano buuxda u dhexeyso, laakiin haddana 30 jir dayra ma aha. so da-da la dhaho waa socotay waa 40 plus, 40 iyo da-daas waa da-da loo kaco ilaa. marka haddaa 40 plus tahay 40ka xataa intee ku raacsan, because waxaa la dhahaa early 40s ama 40 plus and late 40s. 40koo cusub, 40koo dhexdhexaada iyo 40koo xagga dambe 50kii caal saaraya. so anyway, haddayrinin adduunka dheef way ka buuxdaa, u kacdanahaaga, laakiin ciladaha culayska naftaadooda waxu qabanaynin, taas another level waa waxba lagama dhihi karo. ficnaan leed qof walba inuu isku hagar baxo, wixii u roon u raadsado, waxyaabaha nafta u roon uu iskugu sii roonaado. isku roon ma ruqataa la dhahay basically. marka duco iyo daryeel iyo nafaqo iyo iska daba wad way ficnaan leed, laakiin allah u saqiro qof walba. maama allah kuu saqiro, hawalwalin. yaas dhiiga hakadoo keenaa sometimes, haddii loo roonaadona waa soo noqdaa. maxay tiri Soomaali? kaadi badana waa loo gogol badiyaa. marka wuu ku sugaa hormoonka wuu ku sugaa. haddaa wax daryeela la imaanin qadkuu ka baxaa. marka waa ka daba carari kartaa, laakiin hagarli'i howl iskugu qabaan ku dhihi lahaa. insha allahu khayr. soo dhawaada, welcome. waxaan joognaa dabiib iyo dadaal. siidaa su-aalaha waaye, hadalkayga degdega dooya igu qaata. waxaan isku dayaa half an hour inaana ka badinin insha allah, ama jajab noo raaciyo lectureka. soo dhawaada, welcome. amuurta khayr allaha ka dhigo, allah nooga dhigo dhammaan. walaashan kale waxay tiri maamo waa ku salaamaa. salaanka bacdi aniga ilmo isku xigxigaan soo dhalay, laakiin hadda waa joogsaday. waxay ku dhacay maaqaan hadda isbaaray. dhaqaatiirta waxay leeyihiin waxba ma kaa aragno. anigana waxaan dareemayaa in aan uur kale qaadi karin. marka maxaa talaa? weligay qalliin kuma dhalin, ilmahayga horena isku dhow yihiin, haddana waa joogsaday. okay, hakadkaas waa jiraa. okay, jirka hadday wixii uu rabo aadan siinin, hakadkaas waa jiraa.
wax dhacayna lama yaqaano amarka ilaahay of course goorka ilaahay kuu qadiraa la dhalaa ilmaan kuu qornay dhali maysid waase ilaahay waa weydiisan kartaa awlaad kheyr qabto saalixiin oo baariina hakadkaas laakiin millions of gabdhaa isku arko hakadka hadduu uqdad kugu noqdo naxdin kugu noqdo shoog kugu noqdo wax kalaba iskuma xilqaamaysid hakadkii unbaa xasuusane niyaduu kaaga jiraahe wax action oo qabanaysid male noloshaana isla tacaalka ama isku diyaarintana wuxuu rabaa action like loo kaco ilaahayna la baryo wax nafaqala laysku soo kordhiyo mideeda kale waxaan arkay aniga gabdho badan oo hal mar le raba inay dawo yaryar gagataan ama dawada ugu raqiisan hal xaba gadanaayo hal box leh bas baby isku diyaarina ilaahay wuu kugu sii karaa laakiin haddii aad ogtahay gudahaaga waxa ka qaldan waxyaabahaasaad dabiibi leh sax soo lasay thyroidka wax ka qaldan yihiin ugxaantaa daciifa riximkaa wasaq ku jirta ama dhiigagaa kugu baaqdo tubbaa ku xiran ugxaan sidaha ugxaan daciifahaayo runtii isku sheeg isu soo baar haddii waxaan problem jiro la sheego dhan aa ka fiyowdahay alxamdulilah laakiin hadday kuu qarsoon tahay de waa hagaajin laheed sama levelkeeda ogaa laheed meesha lagaa rabay meesha hadda taagan tahay hadday buro jirto sizekeeda xaggee ku taallaa wax badanaa soo fahmi laheyd qofkii dhul maraa dhaaya leh soo dhawaada welcome barnaamijka laayga saara haddaa awoodaan khayr badan iyo farxada ilaahay noo wada weydiiy dhamaan marka maam waxaan ku dhihi lahaa hubsiina halaa la siistaa mar walbana waa idin dhahaa isi soo baar haddii qayb kamide caafimaadka lagu dhego qaybtaasaa xooga saari lahayd caafimaadka guud iyo qaybtaas dadka aan inta badan arko reer dabiibahoo adeegooda danahooda hormoonkooda waxooda dhan u hagaago waa dadka wax fahansan waa dadka dhaxda u xirtay inay isbaaraan ay hubsiina halaala siistaa ka salgaareen sax soo hubso haddayna waxba kaa qaldaneen hakadkana uu jiro ama ciladaha ay jiraan aad tabanaysid amarka ilaahay waay isla tacaalka lee wadeenaa marka soo hubso okay walaashaan kale waxay tiri maama waa ku salaamaa salaanka bacdi aniga waa fiicana alxamdulilah xaaji macoogeygaa lasoo bursaday dabiibna ma ongolo cunto soomaali haddaan bedel maago ma ongolo wuu igu dhaga adag yahay maxaa sameeyaa okay wax la sameeya lama yaqaano wax la sameeyo lama yaqaano way jirtaa rag badan oo aan rabin isla tacaal cilad caafimaad darro oo dhanka fertilitygaana lagu soo sheegay dhakhtarii qawaadkiisana aanan maqli karin maxaa sameynaya bal adiga jirkaaga la tacaalo waayo sometimes waxaa dhacdo wuu haystaa waxbuu haystaa wax laan ma aha laakiin jirkaagii ayaa intii mafka siinayso marka adiga jirkaaga hadaa la tacaasho oo jirkaada aa ka dhigta more alkaline cleansing aad samaysid ama nadiifin aad samaysid hormoonkaaga balance u yahay ugxaantaada active yihiin jirkaaga more vital hadduu yahay ready yahay tikniikya yaryaraa samayn kartaa xilliga aad diyaarka tahay ila garo niyadan ay kuu dhisantahay asigana aadan big deal buu arag laga yaaba inaad saas ilaahay kugu siiyo because nimanka saas oo kale wixiisa daciif yihiin toos familigaas IVF aa loo diraa intaas waxaa la leeyahay cararayaasha ma badno dhuumanka kuma sii carari karaan meel dhexee ku dhimanayaane bal dhab inta loo soo siiyo embryoga banaanka loogu diyaariyo gabadha riximka loo dhex dhigo marka haddaa dhaqaalahaas haysatiin IVF ka soo fiiriyaan ku dhihi lahay dhaqaalahaas haddaadan haysanin duca iyo dhirtaan kugu ogaa okay quraanka ilaahay qudaartaan kugu ogaa marka habaryar dhib ma laha way jirtaa rag lasoo bursaday oo si dabiici ilaahay soo jadooda ilmo ugu guntay laakiin ducaa la rabaa iyo daryeel hadduu cunada kaa diido nafaqada kaa diidana haddee u garaab ninkaaga afrikaan waaye ninkaaga afaarahan waqti ma gelinayo wax ma aqrinaayo ma soo dhagadhagaynaayo ilmo ma diidano caawa in loo dhalo wiil cad iyo gabar cad iyo mataanayaal ma diidano laakiin juhdiguu diidanya kasoo qaad naftaada adoo diiday macnaanteana caanay daadiyo marka ku qaado ducayso adiga la isla tacaal aan ku dhihi lahaa asigana u sabr okay good luck mama okay gabadhan kale waxay tiri habroog salaama salaanka bacdi 10 sano ka hore indiya layga soo bursaday inaan u noqdaan rabi lahaa
waagaas caadadeeda waa ii saxneed hadda caadadii xataa ma haayo maxaa igula tali lahayd dhakhtar kasta u tagtid meel kasta adduunka ka joogo 5 qaaladood ilaa Soomaaliya dhanka fertility-ga haddaad u socoto albaabkooda markaa ka gasho intii tagtayna waa komanka waa noogu sheegi kartiin ama programka qolka sir haweenaa fadhinaa waa iigu sheegi kartiin ko caadadii kuugu dambaysa goormay ahayd baa because saadaasha fertility-gaaga caadadaa loo dhex maraa guri haddii la galaaso albaabka lagama galo saadaasha hormoonkaaga ilaahay baa wax lehe waxaa loo dhex maraa haye caadadaa loo dhex maraa soo caadadiiba haddaadan haynin maxaa talaa marka caadada markay saxan tahay ama markay kugu dhacdo waxaa jirto rajo ugxaantaasa hadday ugxaanta kobcis rabto waa halkeeda laakiin at least caadada haddii la helo waxbaa kuu saxsan caadada hadday qadka ka maqan tahay sug isla tacaal programkaaga laabo ilaa caadada ku imaato indiyadaas iyo turki iyo meel u socotidna sii diyaar garow insha Allah qofkii waxaa la yiri faashaya qoray goyn karo marka sii diyaar garow laakiin diyaar garowntii ha noqoto diyaar garow aad jimicsigii iyo ducadii iyo nafaqadii wixiiba aad labalaabaysid like non-stop 7 days a week 7 maalmood isbuuca hirig maanta oo dhan cuna caabid dadaal duceyso dulqaado iska daba orod laakiin maaha cagajiid iyo halkan fitamiin maanta waa iloobay waxaas maya haddana da'da haddaynu ku caawinaynin si laba laab insha Allah khayr good luck caadadaada markay kuu soo noqoto waa noqon kartaa oo soo fiiri kartaa laakiin isla tacaal insha Allah khayr soo dhawaada welcome okay gabadhan waxay tiri habar yar su'aalaha ku weydiinaa su'aasha ma aqaan gabdho kale inay ila arkeen in kale anuu caadadeeda ii saxan tahay ayaan guur labaad galay intaanan guurka gelin caado igu dhacday anoo ka qabaystay aan aqal galay caado kale iguma soo noqon uurna malihi dhowr biloodaa lay qabaa saa isku baarayo waan daalay dhakhtarka xataa u tagay iskaanaa lay saaray wax walba waa okay lay dhahay dhigni uguma dhacooyo maxaa qaldan I don't know laakiin waxaa la yiraahdaa aqalgalka pressure uu leeyahay okay naxdin uu leeyahay ilaa nikaax kala kugu dhacaayo reer kala samaysanaysaa isha waa jirtaa cadowga waa jira dabcan gabadhii la furo cadow way leedahay because cidii ku furta xataa cadow waa moogdo dadku waa iska xaasidka badan aad ay xaasidka u badan yihiin marka maxaa la sameeyaa intaadan aqal galina la duceystaa sadaqa la baxaa quraanka ilaa la isku aqriyaa arooskaaga hore lagama sheego like lastminute.com wiiga dambe markii lagu aroosayo bas la sheegaa waxaaga waa la qarsaa because 3 bilood 4 bilood ka hor hadii in lagu guursanaa la sheego dadaa xataa cadow ka naxayo ilku raacinayo taas way arooska iyo safarka iyo waxyaabaha la qarqariyo ka mid yahay okay inta badan waxa la safarka waa baaqana arooska dhibaata ka dhacaysa ama gabadha xogaa waa dawaqe marka wax la qarqariyo waa I don't know anyway hadii adan duceysa relax noqo xataa qofka cusub is guursataan jacaylka ama xubbiga sometimes wuxuu leeyahay naxdin dadku way kala miskiinsan yihiin way kala xishood badan yihiin ninkan intuu ku ayaama hore ku jecel yahay uu ku sheekeena uu ka qoslisiina xataa uu ku weydiina uur maaleedaha ku dhaha markaste baby rajayna adi dhan xoogaa qalqal aadan shala qabi jirnaa kugu dhici kara sax so ninka kugu soo aadana ma aqaan nimanka qaar waa iska caadi waa simple nimanka qaarna adag kugu mashquulaa adigana ma taqaanid waxaasi waa qalbi naxnaxe so hormoonkana farxadda badan iyo jacaylka badan iyo masayrka badan iyo xishoodka badan iyo waxaasoo dhan ma u fiicno so jadwalkaaga hadduu qaldamo waxaa laga yaabaa 6 bilood inay caado kugu goyso 1 sano inay kugu goyso dad badan ay saas ku dhacdayna waa arkay marka calm down hadduu dhakhtarkiiba ku dhahay waxba ma aragno waa u laba noqon kartaa adoo leebelada hormoonka weydiina waxaa laga yaabaa inaad u tagto oo lagu yiraahdo uur ma lihid oo lagu soo diro dhinacaan caada ka suge dhinacaan uurka ma lihid adi dhawaa wareere hadda laba noqo bal hormoonka soo ogo insha Allah good luck ya habriya oo guuriyana oo guuri okay soo dhawaada welcome khayr badan iyo farxad soo dhawaada isku soo noqod kale wanaagsan siida su'aalaha way inoo soo noqotay
insha allahu khayr. nambarada hortiina yaalo waa ku reebi kartiin, laakiin iga raali ahaada reer africa haddaad tihiin markaa reebtaan waa idinka xiraa because nambaradiina maaha. hadhowtaan soo gelin doonaa nambarkiina, nambaradiina la iga dheh, nambarka su-aalaha si guud oo dhan, laakiin nambaradan reer dabiib waa soo dhigan kartiin haddaa reer dabiib tihiin. haddii kala sugta nambarka kale insha allah. okay, gabadhan su-aashaana waa muhiim, inta lay weydiiyan xisaab ma laha, marka ila dhageysta insha allah. gabadhan waxay tiri maamo waa ku salaamaa, salaanka bacdi caadadeeda khalkhalaa ku jiray, xanuunna way lahayd. waxaan u tegay dadka gugubo, gabaraan u tegay dadka gugubto, way igugubtay, waa ku roonaaday. infectionna hadda ma arko, laakiin dhiigna ma arko. haddii gabadha hoos laga gugubo dhiigga ma ka tagaa? I don't think so inuu dhiig qaado intii la gugubo. anigu shaqsi ahaanteed horta ma lay gubin ka alla magan, weligeena intaan isdhiibay wixii la gugubayo kugu yaala ma lay dhihin, wixaygu waa isku qabaane laakiin shaqsi ahaanteeda waayaa. intaas gabar arkayay ayagoo ilmo raadinay, ayagoo infection ka carara, ayagoo xal u raadina howlaha hoose, dadow dhiig ka qaaday ma arkin. dad badan ma arkin, waa arkay dhowr qofood oo dhahayo dhiiggii baaba iga joogsaday markii la guba ka bacdi, iyo waan baana waay. aad waxaan u arkaa waan baana waay, iyo waa fiicnaaday, dhiiggii waa ii fiicnaaday, laakiin uur ma qaadi karo. siyaabo kala duwan oo uga soo hadli doona intay kulley gabdhaha i weydiiyeen, laakiin dhiig ma qaado. I don't think so. qofkii expert ee dadka guguba haddaana dhegeysanaysa ilaa meelo badanaa fadhidaan, gabdhihii is soo gugubay reer dabiib iyo si guudbo waa nala soo wadaagi kartiin, laakiin dhiig inuu qaado ani u maleymaayo. waayo dad badanaan aqaanaa la gubay, laakiin just uur inay qaataana ku adkaate. taasna he ilaahaa bixiya maana, waa lagu dambaabayaa haddii la dhaho waa la gugubay kadibna dhashi baaba iga joogsata. lama dhihi karo, dhasha ilaahay baa bixiyo. dad badanoo waa ku fiicnaaday dhahayo, waa ku caafimaaday, gugubniinkiina waa arkay. dad markii la gubay ka bacdina aan dib dambe ilmo u dhalina waa arkay. dad dhahay markiiba waa dafayna waa arkay, oo horay aan ka dafay. 4 ciyaala ii joogto, mid walba waa lay gubay kadib aan dhalay, waa lay gubay waa qaaday. dad dhahaana waa arkay. ilaahay baa marka og, aniga xaggaas waa layga fiican yahay. dad badan oo gubniinka ammaanayana waa arkay, weliba ku ammaanayo xanuun ma ahayn, xanuun ma dareemin. bac iyadoo layga siinaa wax xanuuna ma dareemin. in fact you feel like a relief, like kollayse igu dhaheen like wejiga farta markaa ku taataabanaysid camal, wax xanuuna male. dab caadiina meesha waa lala galay. soo arrinkaasoo u shaqeey ani ma aqaani. anyway habari macaan insha allahu khayr, halkaasaan kaa leeyahay. wax kaloon kugu dhaamo male. waa idin sheeg waxyaabaha qaar idinkuma dhaamo, waxaa idinku dhaamo laakiin diyaar waayo. soo dhawaada, welcome. haye hal su-aal oo kale aan ku xijinaa, ka bacdina waa inoo ii dhiirigelinta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo. no dhalo dad badan ay dhibaato ku haysaa. dhalo la-aan maxaa u roon? waxyaabaha u roon haddii laga imaado wax la cuno, of course wax dabiiciya u roon, laakiin gabadha kale ay ka activesan tahay by mentally active, dabeecad macaan, hadal macaan, qalbi saliim, kurbal la-aan, bashaashnimo. adinkana waa isfiiri kartiin. intiina waxaan ka hadlaa haysato, allah idii barakeeye. dhaladhaladiina xataa waa nadiif. okay, dhaladhala nadiifa waay, because dhinac isku roonaa ka tahay oo waxaa cunta waxaa cabta waa fiican yihiin. dhinacna your whole body waa active. okay, maskixiina waa fiyowdahay, like you're so happy. so maxaa ku dhaco qofka markuu mentally distress yahay? hormoonkaa kaco, cortisolkaa kaco. hormoonaadkaaga markay ka kacsan yihiinna de jirka ma haayo activity fiican, like vital maaha. markaas waa markay meesha dhanba qallayl tahay. hadday wax ka yimaadaanna wax yaroon badnayn. dadka qaar waxay dhahaan slaaka lastic, like so tight, dheg glue camal waa laka glue.
meesha gabdhaha kale ee qaarkood ay leeyihiin islaaka biyo aan saliila dadka qaarna ay leeyihiin waa glass laaka dhalo like ukunta shaxarkeeda cad وجيد ما لك فرتي إذا دانك لجيد وجيد ما and that's the healthy one okay نفقدان عافيمات كعنا كعبة كعيشة of course لا ذي إلا حد إذا كعاوني ثاس ذي وبضن لهاد إياه وكحانتا سيدي كوكر للواي وكحان healthy مركا هيسيد أيا cervical mucus healthy هيسا أما لا عافيمات لأ هيسا قفل بس يدو يقعنو سو عافيمات كعنا كعبة كعيشة آدي حقو في عنتا إلهي بابحي قبلها اسكو ديارنا أولاد وكحان عافيمات لنا إني كوريان ربو فافاهنتي دين قاس كان دغيس ان شاء الله soo dhawaada welcome amurta khayr allah idinkaga dhig allah nooga dhiga dhammaan hal su'aal oo xanuun badan oo ka soo tagin la igu dhahan rabaa inaan raaciyo insha Allah fiidiyogan waxa idinku soo share gareyn doonaa nambarada ay la soo xiriirteen statuskiisa kala soo baxa soo raaci inta imaada insha Allah hadaa joogtaan waaba joogtaan programkan waa idin soo gelina insha Allah gabadha waxay tiri maam waano ku salaama hadda ka hor waxaan galay habaryar dagaal qofkii aan la diriray waa ka galdarnaa qof aan gacan u qaado ahaa babtaan ka geliyay awood ilaahay bay u sugnaatay awoodaan u sheegtay hadday noqoto gacanna waa ka xoog badnaa hadday noqoto afna waa ka afdheeraa qofkii waxaan ka dhigay quraansho camal aadaan qofkaas wabta uga geliyay qofkii qof dumar oo ahaa qof wax isku fiicnayna ahayd xoogaa qalada iga gashay laakiin aniguna mudankeeda marsiiyay halkii ay igu dambeysay gadaal dambe waxaan ka ogaanaa gabadhaas inay habaartay waa ogaa inaan maagay waa ogaa inaan rifay waa ogaa inaan dhibay waxay iga noqotay maaqaan dabcan doqonnimo iga ahayd amar ilaahay ahayd oo igu dhacay alxamdulillah haddayna gacantayda ku dhiman sidaan u rifay maxaan sameeyaa wejiga isma sii karno waa heli karaa oo ma iga dheera meeshay ku nooshahay laakiin muddo sanado ah isma daaqilin iyadana way habaartay adduunkana habaaraa u necbanahay markay isoo habaartay raaligelin ma weydiisanina waa sii caayaan u faray wixii habaarkeeda ii keenay caayaan usii faray aan qumayo ka dhigaa iyada dhan aan sii liidaayo kadibna waaba iga hartayba anigana waa ka haray muddo dheer islama hadlinoo sanado ah maxaan sameeyaa markasta niyadeyday ku soo dhacdaa cafis inaan weydiistaan rabi lahaa laakiin waa ka baqaa takana xuna isku haynaa maxaan sameeyaa caloosha iga horto say ii habaartayaan noqday si xun oo afaaraha hadda aad ka hadashaahay ii habaartay kadibna way iga muuqataa seegseeg guur burbur rafaad taranka iga habaartay marka maxaan sameeyaa tarankiina hadda way igaga dhacay habaarkiyo xataa caado ma hayo aad iyo aadaan u wareersanahay maxaan sameeyaa rabbi tala ku filan dadka way dagaalaan dabadeed heshiiyaan ilaaha kuu kaalmeeyo isdhiib ilaahay bari laba ragca duko u tag insha Allah weydiisa cafis ilaahay dartiisna ku weydiiso qof kastoo islaam oo cafis la weydiisto oo ilaahay dartiis igu cafi la dhaho waa filaa inuu ku cafinaa waayo markaad ilaahay dartiis igu cafi la dhaho qofkaas waa isdhiibe awood ma sheegan waayo ilaahay dartiisa uu ku dhahay dabcanna markaas qof islaama waayo ilaahay kaaga soo qaado waa filayaa inay iska ka cafiso kos habaarka iyadana uma fiicno qofka habaarta mana uma fiicna la dhahay qofka la habaarayna uma fiicno marka qaladna qalad laguma saxo ilmanimo waa cadow laga koro markay Soomaali leedahay waa saan oo kale qaladaadka ilmanimo aan naftaada ka gashay ama dadka ka gashay marka garaasatid ilaahay dartiisa lagu soo noqdaa sax insha Allah khayr I love you so much waa ka sii biibaya waa inoo dhiirigelinta kale haduu ilaahay ka raali noqdo hayaha welcome sida su'aalahana halkan ka fisha
channelkeena kala maamwaanana waa tagi doona insha Allah isniinta umaleynayo wixii lamide laakiin hadda halkaana fadhinaa soo dhawaada welcome khayr badan iyo farxad soo dhawaada reer dabiibow dheeftii dhaladhalada waatana insha Allah caafimaad Allah idinku daro waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay kar cali noqdo labada dhinacba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh